هميجي نيتي دان كسي إلهي وقام سحر إلهي بان كوبري إلهي وين الرحمن كبان كوبري إلهي ذي جميع الحمار سكين إلى دردار ما كاجت ساكة دردارا بان كوبري إلهي بان كوبري تهذي بطي waanu kaa codsanaynaa inaad noo saarto subskrayb barta aynu ku leenahay xaqsoor tv adigoo muuqaalkana sii lay garaynaya weerar degdega maanta waxaynu halkan kusoo gudbinaynaa muuqaalo argagax badan muuqaalo yaab badan muuqaalo dad badan oo soomaaliyeedaanay weli arag haddaba muuqaalkana inta aynaan falanqayn qisadan yaabka badan ee xanuunka badan ee ka dhacday magaalada hargeysa haddii aan u qallo warbixinteenna maanta waa wiilka lagu magacaabo cabdikariim maxamed aadan oo ay isjeclaayeen gabadha lagu magacaabo istaahil cali istaahil maanka haddaba muddo dheer oo uu xidhiir socday istaahil oo ahayd ardayad gabadh ku nool magaalada hargeysa iyo weliba cabdikariim oo isaguna ahaa wiil ardaya ayaa waxay isu qabeen shacayl dhaba muddo dheer oo ay xidhiirka soo wada wadeen in yaroo isdhaaf xataa aanu jirin adigu waxa uu ka dareemay in ay diidan tahay oo aanay rabin cabdikariin istaahil haddaba wuxuu go-aansaday cabdikariin hanshabaado badan inuu hawada u soo mariyo weliba iyo isaga oo ugu dhaaranayo inuu weshigeeda u bedeli doono mid dhooqa ah sida muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey oo aynaan halkan ku soo bandhigi karin maadaama waxyaabaha dhiigale ay mamnuuc ka yihiin halkan haddaba gabadhaa kuu muuqata weshigeeda maanta waxaa loo bedelay dhinac walba waa la wada gooyey indhaha xataa waxba kama arkayso waayo dhagax weyn ayuu madaxa kala dhacay iyo weliba ilkaha gabadhan ayaa sida warbaahinta magaalada hargeysa degdeg ay u baahisay iyadoo weliba gabadhan lagula tacaalayo dhakhtarka weyn ee magaalada hargeysa wararka degdega hees kasoo daba dhacaya waxay sheegayaan in gabadhan sanku shabay ilkuhuna ay kasoo daateen qeyb daanka ka midna uu shabay maadaama oo uu ugu dhaartay maalmo dhexdaasa sida ay codod laga helay moobilkeeda uu ugu soo diray isagoo ugu dhaaranaya inuu weshigeeda bedeli doono haddii ay qasab ku jeclaan weydo oo ay mar walba ka qaban weydo moobilka uu soo wacayo haddaba sideebay arrintu u dhacday bartan ayaynu ku falanqaynaynaa sidii xaqiiqada dhabtahi u dhacday iyo sababtii uu u dilay iyo goortii uu dilay iyo halka lagu dilay gabadhan iyo sidii loo helay isaga weliba warar degdega weeyaan wiilkan aad arkaysa cabdikariin maxamed aadan lagu magacaabo shacaylkiisa dhabtaha wuxuu ahaa istaahil cali istaahil maanka muddo dheer ayay soo sheclaayeen wuxuu ku nool yahay wiilkani hargeysa inantuna hargeysa ayay ku nooshahay balse xidhiirka in badan soo socday istaahil way ka biyadiiday waxay tiri walaal kulama wadi karayo xidhiirkaaga shacayl maadaama buuq badan inaga dhex dhashay aakhirtaankii gabadha quruxda badan aad arkayso maanta sanka ayaa shaban ilkaheedana ilkaha horoo dhan way kasoo qubteen weliba daankeeda qayb mid ka midna wuu shabay haddaba wiilkan ayaa isla markiiba la baadi goobay oo meel walba laga soo dayay aakhritaankii gacanta ayaa lagu soo dhigay oo weliba ciidamada saldhigga magaalada hargeysa ee ibraahim koodbuur ayaa si degdega gacanta ugu soo qabtay wiilkan isagoo baxsad ah haddaba hadda xabsi baa loo taxaabay wiilka aad arkaysa gabadha ardayada ah ee quruxuleyda ahna waxaa lagula tacaalayaa isbitaalka weyn ee magaalada hargeysa ama dhakhtarka weyn ee magaalada hargeysa halkaasoo lagu dabiibayo dhaawacyadii cuslaa ee uu geystay wiilkan aad arkayso oo intuu meel madow u galay iyadoo gurigeeda kusii socota intuu dhagax madaxa kaga dhuftay markii dambena intuu xagga kale u rogay weshiga quruxdaa badan u bedelay weshi meelo badan nabaro waaweyn iyo weliba daqaro fara badanna ugu geystay madaxa oo weliba qeybta weshiga ee qofka quruxdiisa wuxuu bedelay oo ugu dhaartay inuu quruxdeeda u bedeli doono mid adduunka foolxumadeeda looga cararo haddaba gabadha quruxleyda ah wiilkan ayaa sidaa u galay waa dhacdo xanuun badan oo ka dhacday xalay magaalada hargeysa balse saaka wiilkan waa la baadi goobayay meel kastana waa laga waayay balse goor dhoweytoole
ayaa xabsiga loo taxaabay oo lasoo helay wiilkan isagoo baxsada oo gurigooda jooga. dad badan ayaa soo raadiyey. aakhirtaankii gacanta ayaa lagu soo dhigay markii la ogaaday inuu wiilkani dhagar qaba yahay. dad saaxiibadii ahna ayaa u soo wacay weliba saldhigga Ibraahim Good Buur isagoo meel ku dhuubanaya. aakhirtaankii gacanta ayaa lagu soo dhigay maadaama uu dhagar qaba yahay. gabadh Soomaaliyeed oo quruxley ah xalay toole meel madow ugu qaray oo weliba shacaylkeeda ahayd. muddo dheer ayay soo shukaansanayeen oo isu wada sheekaysanayeen oo shacayl dhabihii ka dhexeeyey. balse keliya wuxuu ku dilay, haddaad taleefanka aan kaa soo waco iga qaban weydo waxaan u bedeli doonaa wejigaaga mid dadku ay ka yaacaan. sida sawirro iyo muuqaalo baraha bulshada oo aynan halkan soo bandhigi karin lagu baahiyey. istaahil maanka haddii aad ku qorto baraha bulshada waa soo helaysaa markiiba. ama istaahil cali waxa weeyaan gabadha quruxleyda ah oo maanta xaaladeedu ay aada u daran tahay maadaama oo wiilkani gabadhan ku dilay. habeenka keliya ee aan soo waco haddii aad iga qaban weydo waxa kugu dhaca waad yaabi doontaa. balse ilaahay mahadi ha ka gaadhiye ninkan gacanta ayaa lagu soo qabtay oo waa la xidhay. xabsiga weyn ayaa weliba la rashaynayaa. waxaynan rashaynaynaa inay cadaalad heli doonto istaahil oo ah gabadha yar ee miskiinada ah ee wax allaala iyo wax ay qarabsatay aanu jirin. xataa waxaa la odhan lahaa ninkeedu waxbuu ku dilay haddii ay isqabaan. balse tan waa dhacdo yaab badan. waa nin shacaylkiisii ama gabadh ay wada sheekaysanayeen ku dilay. waa maxay sababta aad iga qaban weyday marka aan ku soo waco oo maxaad u dhiibatay? sheekaaba idin bilow ahe mise meher baa kuugu xidhan? mise waxa weeyaan run ahaantii markaan xaq ka hadalno 100% waxa weeyaan dhacdo aynaan hore u arag oo xanuun badan oo ka dhacday magaalada Hargeysa. dhacdadan ayaa baraha bulshada aad loogu faafiyey oo dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada aadka u faraqeeya ay leeyihiin dhegta iyo dhabankaanu ishayna oo tan oo kale may ina soo mareen manaynaan arag. haddaba waxaan ku leenahay ku soo biir barta aynu ku leenahay Xaqsoor TV adiga oo rukumanaya oo weliba gambareerkana sii furanaya si aad u hesho warar degdeg ah oo xaqiiqooyin dhab ku salaysan oo aan markaas kugu soo gudbino barta aynu ku leenahay Xaqsoor TV. Soomaalida faraha badan ee daafaha dunida ku kala nool baaq ayaan u direynaa. waxaan leenahay walaalayaalow waan idin mahad celinaynaa. ilaahayna ha idin barakeeyo, ilaahayna ha idin sharfe nagu soo biira. waxaan ku ballan qaadaynaa warar xaqiiqo ah iyo weliba anagu u helin doona xaqsoornimada iyo Xaqsoor TV sababta aan ula baxnay annaga oo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaana saaxiib la ah bulshadana u soo gudbina warar tayo leh.